habeennimadii xalay waxaa magaalada Laascaanood ka dhacay kulan u dhaxeeya maayirka degmada Laascaanood iyo hablaha ka faa'iideystay barnaamijka shaqo qaran kaas oo maayirka degmada Laascaanood ahna gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Laascaanood uu sameeyay casho sharaf hotel kulan ee magaalada Laascaanood sidoo kale kulankan ayaa waxa ujeedkiisu ahaa inuu maayirka degmada Laascaanood ahna gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Laascaanood uu dhiirigelin lahaa hablaha dhalinyarada ee gobolka Sool sidii ay doorkooda uga qaadan lahaayeen alfadan waxaa lagu talagalay inay loo sameeyo ardayda shaqo qaran gaar ahaan qaybta dumarka waan ku faraxsanahay inta dhalinyarada soo qaybqaadiyay duqa degmada gobolka Sool Cabdicasiis Xuseen Kaarwale ku maartay hablaha shaqo qaran uu sameeyay casharada islaamaha reer miyiga ku sheegtaan hablaha waxbaranin waa ku weyn baraarjitaan inamada rag baan ku aragtaan waa tishada idin sheegayay rag nolosha hadii jiraad uga dhacay ku qeyraadaan badan dhalinyarada qeyraysa mustaqbalkooda u dhistayna inban ku amaayo wadaagaan wax la wadaago inaan u sheegtay sidoo kale waxaan u celin doonaa maayirka gobolka Sool Cabdicasiis Xuseen Kaarwale وحفلتنا عشان شرفتها كما موسي أرضي قبل كوسا بحضي هاي الولاية لحن هبلات بانو هاي لحن كهبلات كما نان إمام قبيل كما نان إمام أرمي سياسيين كما نان إمام وحكلا ولا حديدا أما قبيلة أما قيامنا عاصر قلم بانو كنني إنت عقف ميش شوف تمام تكرت وحنو قلنا رقمي شقد عسكرا كانوا قلنا إلهي بالله ما هديه golaha deegaanka ee degmada Laascaanood iyo maamulka dowladda hoose oo isku duuban in halkan aan caawa casho sharaf ugu sameynay ardaydii ka soo qalin jabisay barnaamijkii shaqo qaran barnaamijka oo ah barnaamij muhiim ah ummadda caawana iyo maanta aad ka doontaan midhigiisii iyo mustaqbalka soo socdaba barnaamijkaas uu hirgeliyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Muuse Bixi Cabdi oo aan ugu hambalyeeyno in hawl loo baahnaa uu qabtay waqtigii loo baahnaa waxaan leeyahay marka koowaad wasiirkii horumarinta biyaha Salaaman Yuusuf iyo gudoomiyihii gobolka Cabdiqani oo safar ay galeen oo caawa yimaadeen inaga soo qayb gali waayay xafladda iyana way soo salaamayeen maadaama ay caawa safar ka yimaadeen dad badan inaad fursadan aan ka faa'iideysan marka idinkuna waad ka faa'iideysteen kullu waa iska calaf adduunyadu waa calaf marka waxaad rajeenayaa insha Allah maanta cidna shaqo ka bari maysaan cidna ka bari maysaan inay waastayso nadiifo halka nagala hadalna waaste ma jirayso maanta laga bilaabo si shaqana la idin sheegay waxaad ka mid tihiin shaqaalaha dawladda insha Allah qof walba meeshu calafka u yeesho ma lagu qori doonaa marka waxaad rajeenayaa maadaama tiin muxuu ahaa jaamiciintii waddanka inaad nagala shaqaysaan horumarinta iyo sidii magaaladeenu u noqon lahayd magaalo bilcsan oo horumarsan inaynu dhammaanteed ka shaqayno maadaama tiin aqoonyahaankii magaalada inaynu si dhow u wada shaqayno dhib iyo dheefna isla qaybsanno baan diyaar u nahay aad iyo aad maasantiin waxaan rajaynaynaa nasiib wacan iyo waqti wacan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh